وفد بلارن oo ay hogaaminayso marwada koowaad ee madaxweynaha Soomaaliland Marwo Aamina Maxamuud Jirde ayaa maanta waxa si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanka Kalabayd oo ka tirsan gobolka Gabiley wafdigaasi intii aan soo gaarin gudaha magaalada Gabiley iyo waliba deegaanka Kalabayd waxa duleedka kantaroolka bari ee deegaanka Caabudle kaga hortagay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee magaalada Gabiley waxaana wafdigaasi loo soo galbiyay dhinaca deegaanka Kalabayd oo dhinaca galbeed ka xigta gobolkani Gabiley waxaana wafdigaasi si diiran ugu soo dhaweeyay deegaanka Kalabayd dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi Kalabayd oo aanu kala harin caruur iyo ciroole haween iyo waliba ardayda wax ka barata dugsiyada waxbarasho ee deegaankaasi jeedada wafdigani ay marwadu hogaaminaysay ayaa waxay dhagax dhiga dhismo caafimaad oo ay ugu deeqday Soomaaliland marwada madaxweynaha Jabuuti Marwo Khadrax Maxamuud Xayd dhismahaasi oo laga hirgelinayo deegaankaasi Kalabayd waxaana wafdigani marwada ku wehelinayay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Salebaan Axmed Ciise Xagle Toosiye wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Marwo Samsom Cabdi Aadan iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaana ugu horreyn halkaas ka hadlay marwada madaxweynaha iyo waliba wasiirka caafimaadka iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Marwo Samsom Cabdi Aadan waxaana hadaladoodii kamid ahaa maanta halka sida sharafta leh noogu soo dhaweeyay aad iyo aad baan u salaamaya ugu mahadnaqaya maanta halka waxaynu isugu nimay inaynu dhagax dhigno walaasheen Khadra Maxamuud Xayd marwada koowaad ee Jabuuti deeqda sharafta leh haday raashinka gaariga halka taagan tahay iyo haday cusbatalka tahay ay ugu ballan qaaday ee ay u fulinayso Kalabayd oo magaalo aad iyo aad iyadana ay muujisay inay qaali ku tahay annagana qaali nagu ah maxaad u soo sheeginaynaa walaal Khabray anigoo ka wakiila caruur iyo ciroole dadka degan magaalada Kalabayd waanu ku mahadnaqaynaa guud ahaan ummadda reer Soomaaliland oo dhan way ku mahadnaqaysaa ilaahay ha ka jazaaisiyo waxaan aad ugu mahadnaqayaa marwada Jabuuti Khadra Maxamuud Xayd oo runtii halkay ku dhalatay oo ayaan leh waxay ku dhalatay meel qurux badan oo Kalabayd la yiraahdo axsan ay ku farxaysaa inay meel qurux badan ku dhalatay oo dad si wanaagsan kulligood runtii isbitaalkaas ay ku daaway marwada koowaad ee Jamhuuriyadda Jabuuti Khadra Maxamuud Xayd waxaan uga mahadcelinaynaa xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba deeqda muhiimka ah oo ah sadaqo jaariya waxaanu uga mahadcelinaynaa Jamhuuriyadda Jabuuti guud ahaan iyo gaar ahaan marwada isbitaalkaas wixii aanu ku qaban karno oo kalena uqaasha salaadiinta iyo waxgaradka iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee magaalada Gabiley oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa Khadra Xayd waxaan leenahay ha noolaato ee ay soo wakiilatay marwada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Aamina madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado xukuumaddu ha noolaato marwada koowaad ee qaranku ha noolaato qof kasta oo waxqabadka qaranka jecel ha noolaado waxaan ku soo gabagabeynayaa nabadgelyada meelaan ay soo dhintay marwada koowaad ee Jamhuuriyadda Jabuuti Khadra Maxamuud Xayd oo ay soo wakiilatay marwada koowaad gabadhiina waxay marwada madaxweynaha Soomaaliland Marwo Aamina Maxamuud Jirde shahaado sharaf ku doonsiisay wariye Mukhtaar Nuux Ibraahim oo kamid ah wariyaasha ka howlgala telefishinka caalamiga ah oo Cable kadib markii uu baahiyay baahida ay deegaankan u qabaan dhismaha